xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ayaa ka soo qayb galeen mas'uuliyiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday caawa magaalada Dhuusamareeb. Cabdilaahi Cali Sowshiina ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax gudoonka baarlamaanka Galmudug, waxaana shacabka ka soo qayb galay xafladda ay xildhibaanada cusub ee Galmudug ka codsadeen inay codkooda siiyaan musharax gudoomiye baarlamaan Shiine. waxaan aad ugu faraxsanahay una soo dhaweynayaa musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cabdullaahi Axmed Cadow. runtii waa niman aad u soo wada shaqeynay muddo dheer. waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego oo idin xusuusiyo bani aadamku hantidiisa waxaa ugu qiimo badan wixii uu geliyo waqti iyo xoog. Cabdullaahi Axmed Cadow wuxuu ka mid yahay dadka Galmudug waqtiga dheer soo geliyay. ujeedada ugu weyn waxay tahay xafladan ama munaasabadan ka soo qaybgalkeeda murashaxa gudoomiyaha baarlamaanka Cabdullaahi Axmed Cali Sow oo u istaagay inuu ka qayb galo tartanka furan ee ka dhaxeeyo gudoomiyaha baarlamaanka loo tartamayo. waa ku soo dhaweeynaa waanu hambalyeynaa. xildhibaan Sahro Cumar Maalin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale musharax gudoomiye baarlamaan ee Galmudug ayaa madasha ugu dambeyn ka hadlay. Galmudug maanta waxay u baahan tahay inay meel culus fariisato, qof degan ay doorato. Cabdullaahi deganaansho waa ku taqaanay. waxaa ka hor rabaa garabka oo heesto, laakiin si dawladda waa la socotiin isteediyada ay hayso oo ah South West iyo Hirshabeelle si u shaqeeyaan. haddii isteedkaana oo sidoo kale qof saasoo kale uu helo. sababaha uu kalifay ayaa waxaa ka mid ah inaan isu arkay ama ay igu talayeen xildhibaanada jaalkayga ah oo aan markaan is aragnay talooyinkoodii iyo ay dhaheen niyahow adaa mudan meesha istaag, xil jecli igama ahan inaan maanta inta istaago aan xil doonto. waxaan aad u dhibsanahay ka mid tahay sababtoo mas'uuliyadda waxay ka mid tahay waxyaalaha maalinta yawmal qiyaama qofka la weydiinayo. laakiin mararka qaarkood waxaa waajib ah sida nabiyullaahi yuusuf oo kale. nabiyullaahi yuusuf misaalkiisa ma ihi, laakiin waxaan isku arkaa in baarlamaanka iyo xukuumadda haddaysan wada shaqayn ka dhaxaynin oo ay maalin ilaahay keenaysa qabsi uu ka dhaxeeyo, halkaas xasiloonin siyaasadeed ama xasiloonin baarlamaan meeshaas ma jiro. Maxamed Cabduuli Tooxow, TV-ga Universal, Dhuusamareeb.